aynu ku bilownay wararka aynu ka helayno degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamada kumaandoosta Soomaaliya ee saldhigooda uu yahay garoonka Beledoogle ee xalay degmadaasi ku dileen nin nabadoon ahaa oo caan ka ahaa degmadaas iyo deegaanada hoos yimaada sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen idaacadda Kulmiye. dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada kumaandoosta oo ka yimid dhanka Beledoogle ay gurigiisa ku dileen Maxamed Cusmaan Xuseen oo ahaa oday si weyn looga yaqaano deegaanka. wararku waxay intaa ku darayaan in ciidamada ay hore u qaateen meydkiisa markii ay dileen kadib waxaana dadka deegaanku ay sheegeen inaanay garanayn sababta loo qaaday meydkiisa. mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa idaacadda Kulmiye uga warramay dhacdadaas. xalay waxaa dhacay ciidamada oo Beledoogle oo bangaraftan oo magacooda dhahayo kuwaas ayaa waxay soo weerareen xaafadda oo Cudurweyne xaafadka oo magaceeda Cudurweyne marka xalay sarri dhahay ahayd marka ay soo weerareen albaabkii waxay soo fureen bam oo xoogooda albaabkana dad waxyeelo aan gaarsiinayn gurigii soo dhaafeen si ay u socdeen ninkii oo gurigii lahaa oo ay soo baxsadeen ninkaas markii ay soo bixiyeen xabad ay ku dhufteen markii ay ku dhufteen meedkii oo ninkaas isla markaas uu dhacay way qaateen meedkooda isla markaasna way la baxeen ninka muxuu ahaa asaga ninka wuxuu ahaa nin oo magaalada si fiican loogu yaqaano xoogo nabadoon camal ay dhahdaa dadka qafla ka saay ayuu ahaa oo degmada oo si weyn oo magac ugu leh marka iyagana kuley xalay shaqadii dhaxeeyay markay qaateen meedkana way la baxeen wallahi hadda xaaladda Walaweyn xoogo way iska degan tahay subaxii waxaa imaaday gudoomiyaha degmada Walaweyn gudoomiye Maxamed Siidow waa imaaday markaas wuxuu dhahay kuley anaga kama hadli karno meeshaas dowladda Soomaaliya oo howlgalkan war ka soo saartay waxay sheegtay in lagu dilay howlgalka madaxii qaraxyada Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Cismaan Buluush kaas oo in muddo ah ay baadigoobayeen laamaha amniga. howlgallada ciidamada kumaandoosta ee degan garoonka Beledoogle ayaa kuwa gaara waxaana hore u jiray howlgallo sidan oo kale ay uga sameeyeen degmada Walaweyn oo dadka deegaanku ay aad uga caroodeen. sanadkii 2018 ayay ahayd markii ciidamada ay degmada Walaweyn ku dileen wadaad lagu magacaabi jiray Macallin Nuur Cismaan Bilaal kadib markii ay ugu dhaceen gurigiisa. mar dambe ayaa saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka waxay sheegeen in wadaadkaas uu ka tirsanaa Al-Shabaab lana dagaalamay ciidamada. warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in ciidamada dilkan geystay sidoo kale ay qayb ka ahaayeen ciidamo Mareykan ah. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. waxa la soo warinayaa in iminka uu kulan uga socdo halkaasi isaga iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. dhinaca kale madaxweynaha Puntland ayaa cafis ku sii daayay odayaal iyo siyaasiyiin ay dhawaan xukun ku riday maxkamadda gobolka Bari. Cumar Maxamed Soomane ayaan goordhow arrintan ka wareysanay. Axmed aad baad u mahadsan tahay waxaan ku suganahay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland waxaa iminka lagu soo dhaweeyay halkan madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Madoobe isagii xubnaha wafdi uu hogaaminayo. madaxweynaha wafdigiisa waxaa soo dhaweeyay Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland iyo xubno ka tirsan golayaasha dowladda maamulka gobolka Bari iyo kan degmada Boosaaso. socdaalkan oo ahaa mid aan horey loo sii shaacin maalmahan soo aadan Axmed Madoobe waxa uu ku joogi doonaa magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland waxaana inta badan la filayaa Axmed Madoobe iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ay ka wada hadlaan xaaladaha dalka Soomaaliya marka loo eego arrimaha amniga xiriirka ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka la filayo in dalka ay ka qabsoomaan sanadka 2020 ilaa 2020 sida la ogyahay Jubbaland iyo Puntland waxay ka mid yihiin maamulada aan isku wanaagsanayn wada shaqaynta dowladda federaalka Soomaaliya. arrimahaasina waxay qayb ka yihiin waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan mas'uuliyiinta balse inkastoo aan laga hortagi karin qodobada ka soo bixi doona madaxdan waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan shirkoodana oo ay ku yeelan doonaan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland haddana waxaynu ogaan doonaa waxyaabaha ka soo bixi doona wada hadallada ay yeelan doonaan. waayahay Cumarow haddaan intaas kaga gudubno socdaalka madaxweyne Axmed Madoobe dhinaca kale waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in siyaasiyiin iyo nabadoono dhawaan lagu xiray magaalada Boosaaso maxkamadna ay xukunteen xabsiga laga sii daayay warkaasi maxaa ka jira?
aad baad umahadsan tahay. Shalay oo aan qayb ka ahaa wafdi madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo dooqanayay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ayaa halkaasi madaxweynaha waxa uu xabis madaxweyne ugu fidiyey 5 xubnood oo iyagu horey xukun maxkamadeed ugu dhacay. 5 xubnoodna waxaa la sheegay inay ahaayeen siyaasiyiin iyo nabadoono gobolka bari ka soo jeeda, kuwaasi oo la sheegay in ay horey ugu kacsanayeen xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani iyaga oo ka horjeeda heshiisyo ay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani xukuumaddiisa la gashay shirkado laga leeyahay waddanka Imaaraadka Carabta. aad iyo aad buu umahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa wariyaheena Cumar Maxamed Soomane oo ku sugan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. markan haddaan eegno dhinaca Ugandana, dowladda Uganda ayaa Soomaaliya u soo diraysa ciidamada ka howlgaba ciidankeeda si ay uga qayb qaataan la dagaalanka al-shabaab. dhacdadan oo ah mid dad badan ay la yaabeen waxaa warbixintan ku soo koobaya Axmed Maxamed Ibrahim. dowladda Uganda ayaa sheegtay in ay u yeertay boqolaal askari oo horey howlgab uga noqday shaqada qaranka ee dalkaasi, kuwaas oo la doonayay in loo soo diro gudaha dalkeena Soomaaliya. wasaaradda gaashaandhigga Uganda ayaa sheegtay in tirada askarta loo yeeray ay gaarayso 2752 askari, kuwa uu qorshuhu yahay in loo soo diro Soomaaliya si ay uga qayb noqdaan howlgalka AMISOM. taliyaha ugu sareeya ciidamada keedka dalka Uganda, General Charles Awine Otaima, ayaa sheegay in ciidamada loo yeeray ay yihiin kaliya kuwa howlgabka ah, kuwaas oo hore shaqada uga fariistay. taliyaha ayaa sheegay in ciidamada loo yeeray ay yihiin kuwa da'dooda ka hooseyso 55 sano jir, darajadooda ciidanimona ay ku eg tahay ama ay ka hooseyso darajada gaashaanle. maahan markii ugu horeyso oo ay dowladda Uganda u yeerto ciidamadeeda howlgabka noqday, waxaana sidaan oo kale ay hore u samaysay sanadkii 2012 markaas oo ay ka qayb qaateen howlgallo badan oo ka dhacay gudaha Soomaaliya. Kenya ayaa hubaynaysa macallimiinta wax ka dhiga goobaha waxbarashada ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. arrintan waxa ay timid xilli toddobaadyadii ugu dambeeyay al-shabaab ay kordhiyeen weerarada ay ka geystaan gobolkaasi. Maslax Abuukar Xaaji ayaa ka waramaya. boqolaal ka mid ah macallimiinta aan u dhalan gobolka Waqooyi Bari Kenya oo wax ka dhigayay iskuulaad ku yaala halkaasi ayaa saacadihii la soo dhaafay isaga baxay gobolka kadib weeraro macallimiin Kenyaan ah lagu dilay oo ka dhacay deegaano ka tirsan ismaamulka Gaarisa. Akelo Missouri waa xogayaha ururka ay ku mideysan yihiin macallimiinta dalka Kenya. waxa uu soo jeediyey in dawladda ay tababar military iyo hub siiso macallimiinta si ay uga baaqsadaan weeraro kale oo uga yimaada al-shabaab. macallimiintii ugu horeysay ayaa isaga baxay deegaanka Kamude oo isniintii aynu ka soo gudubnay lagu dilay 3 macallin, mid kalena lagu dhaawacay. tani waa tallaabo kale oo dib u dhac u keenaysa waxbarashada ismaamulada Soomaalida oo sanadihii ugu dambeeyay gaartay meeshii ugu hooseysay. ururka macallimiinta dalka Kenya waxa ay ku hanjabayaan in gabi ahaanba macallimiintooda ay kala bixi doonaan deegaanada Waqooyi Bari haddii amniga aan waxba laga qaban. waalidiin badan oo walaac ka muujinaya in ubadkooda ay gabaan waxbarashada iyaga oo cod dheer ku hadlaya ayay ka dalbanayaan madaxda ugu sareysa ismaamulada Gaarisa, Wajeer iyo Mandera in ay xal u raadiyaan xaaladan cakiran. laamaha ammaanka Kenya ma aysan ka hadlin dalabka ka yimid dhinaca ururka macallimiinta, halka wasiirka waxbarashada Kenya uu maalin ka hor ballan qaaday in dawladda ay xil iska saari doonto amniga guud ee barayaasha ka howlgala dhulka Soomaalida ay degto ee dalka Kenya. markan haddaan eegno magaalada Dhuusamareeb ee magaala madaxda Galmudug, musharaxiinta xilka guddoonka baarlamaanka ayaa maanta khudbadahooda waxqabadka haddii la doorto waxay ka horjeediyeen xildhibaanada maamulkaasi. Maxamed Cabduuli Tuuxo oo ku sugan howlka ay hadaljeedintaasi ka dhacaysay ayaan goordhow arrintaasi wax ka weydiiyey. waa mahadsantahay Axmed Saciid. waxaa hadda socotaa khudbadihii ay dhigayeen musharaxiinta taagan guddoonka baarlamaanka cusub ee Galmudug. waxaa goordhow dabcan soo ilaatay musharaxiinta hadaladoodii guddoonka baarlamaanka cusub Galmudug u taagan, iyadoo hadda ay soconayso musharaxiinta gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug u taagan. waxaana halkaas ay ka sheegeen waxyaabaha ay qaban doonaan haddii musharaxii guuleysta uu ku soo baxo. goobta hadda aan ku suganahay ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku sugan oo dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale amniga halkan doorashada ka dhacaysa la soconaya.
hawshuna kolley dabcan waxa ay u muuqataa mid soo gabagabeyn doontaa goordhow maadaama haweejeedinta musharaxiinta ay marayaan qaybihii ugu dambeeyey. waa gartay marka musharaxiintu halkaasi ka hadlay maxay ka sinaayeen oo sheegeen? waxyaabaha ay ka sinaayeen waxaa ka mid ahayd in baarlamaanka galmudug oo muddo dhowr sana khilaaf la hagaajiyey ay midayn doonaan islamarkaana howlihii looga baahnaa baarlamaanka galmudug ay gudan doonaan waajibaadka laga doonayo. waxyaabahaas oo dhan inbaa jira oo ay ka hadleen oo ay ka wada sinaayeen waxaana ay dadka dhegeysanaya xildhibaanada ay u muuqatay in dabcan iyagu ay markaas danaynayaan hadalada musharaxiinta maadaama galmudug dhowrkiisna jirta khilaafyo kala duwan ay iska jireen. maxamed cabdiweli tooxow ayuu ahaa oo ka hadlaya arrinta la xiriirta musharaxiinta xilka guddoonka baarlamaanka galmudug oo maanta qodobada waxqabadkooda ka horjeedaya xildhibaanada maamulkaasi. dhanka kale xaaladda siyaasadeed ee gobolka gado ayaa weli kacsan iyada oo jubbaland ay dowladda soomaaliya ku eedeysay inay dhibaato ka wado gobolkaasi. cabdimajiid cabaas aadan ayaa warkan kismaayo ka soo diray. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland oo la hadlay idaacadda kulmiya ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ku saabsan xaaladda guud ee gobolka gado, abaabulka ka dhanka ahi jubbaland oo dowladda federaalka uu sheegay inay ka wado gobolka gado iyo dadaalada ay dowlad goboleedka jubbaland ka wado gobolkaasi oo lagu xoojinayo nidaamka dawliga ah ee jubbaland. madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in jubbaland ay u madax bannaan tahay arrimaheeda gudaha islamarkaana dastuurka federaalka uu awood u siinayo. waxa uu ku eedeeyey dowladda federaalka ee soomaaliya in gobolkaasi ay ka wado iska horkeenidda dadka wadadega gobolkaasi sida uu hadalka u dhigay. dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay ku mashquulsan tahay burburinta maamuladii hore ee u dhisnaa wakhtigana uu kaga dhammaaday arrimahaasi ayuu yidhi. dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa ugu baaqay bulshaweynta reer jubbaland inay u midoobaan wax kasta oo markaa carqalad ku keeni karaan maamulka iyo nabadgelyada ay haystaan. dowlad goboleedka jubbaland adeegay bulshadooda u doorteen u haysay ilaahay mahadiis waa la tacaalnay iyadoo aan ka taxadirnay shirqooladii noola dhigay oo ahayd inay shacabkana islaayaan, dadka walaalahana isdigaan, halkaana dagaalo sokeeya ay ka qarxaan. annagoo si weyn ugu taxadirayno yaan la tacaamulnay ilina aagii waan joognaa, wax wanaagsan baana ka socdo maalinna maalin ka dambaysa hadmo un caqabad. dhanka kale wararka aynu ka helayno isla gobolka gado ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadii dhowaan ku biiray dowladda federaalk ee soomaaliya qayb ka mid a ay haatan shaaciyeen in ay dib ugu biireen maamulka jubbaland oo markii horeba ay ka tirsanayeen. aadan cabdulaahi xasan oo hogaaminayay ciidankaasi ayaa carabaabay in ay dib ula midoobeen ciidanka jubbaland oo markii horeba ay ka tirsanayeen. waxa uuna ku sababeeyey kadib markii dowladda soomaaliya ay uga baxday ballamo ay horay ula gashay sida uu hadalka u dhigay. waxaa jira waxyaalo fara badan dowladda federaalka ah ay ku qaldan tahay. waan miisaamay, miisaanka aan miisaamina waxaan ka dhexelay in ay ka jirto calqabad siyaasadeed. maadaama calqabada siyaasadeed meesha ku jirto waxaa laga rabay dowladda federaalka ah in ay ciidamada xoogana daraf ay u bixiso, weliba ciidamada daraawiista maahana ciidan waxay leedahay tirig ayay leedahay. ciidamada daraawiistan waxaa iskale federaal baa iskale. gobolka marka calqalato weyn oo dagaal in ka soo wajahaya ayaa ka soo muuqatay. saacadaas ka dambe ayaa waxaan qaatay go-aan. sargaalkan ayaa ciidanka tiradooda waxa uu ku sheegay 120 askari. waxa uuna dhinaca kale sheegay in ciidamadan ay xuquuqdooda muddo badan dowladda soomaaliya ka helin. cabdilmajiid cabaas aadan, fantastic, KNN, Kismaayo. markana haddaan eegno magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle, taliska booliska ee magaaladaasi ayaa faahfaahin ka bixiyey baaritaano ay maalmahan halkaasi ka wadeen. bashiir cali daahir ayaa warkan ka soo diray magaalada jowhar. taliska booliska magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka wadeen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe, kaasoo lagu adkeynayay amniga magaalada jowhar. taliyaha saldhigga degmada jowhar maxamed siyaad cali anjeex ayaa sheegay in howlgallo ay ciidamada booliska ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada jowhar kaasoo looga hortegayay amni darrada, cid walbo falal amni darre ka samaynaysana looga hortegayay. waxaana uu tilmaamay taliyaha in ay sidoo kale ay jireen amaro ka soo baxay taliska booliska hirshabeelle oo ku aadanaa in hub sharci darre aan lagu qaadan karin magaalada jowhar, taasina uu sheegay inay dhaqan galeen. yacni baaritaanaan sameynaa sida kontaroolada xaafadaha waxaasaan sameynay. kadib waxaa markaan wareegaas koowaad aan ku guulaysanay waxaa kaloo sameynay markii labaad yacni ciidamada militariga, nabad sugidda
booliiska si aysan macnaha aysan maaragtay ay uga ilaaliyaan carabiga go-aankaasi waa fuliye waana dhaqan geliya waxaan ka mamnuunay magaalada dadka wato dharka carabiga ee qoryaha fariida alxamdu waa ku guulaysanay arrintaas aad yani maaragtay u suura gashay amnigu sidiisaba waxaan ugu talagalnay annaga ka hortag booliisku shaqada booliiska waxay tahay ka hortaga ka daba tag annaga waxaan sameynaa ka hortaguna sidiisa badan waxaa waaye yani maaragtay dadku haddaad aragto inaad soo jeedo ma kugu fududaanayaan way kaa ordaceen warkan ka soo yeeray taliska booliska magaalada jowhar ayaa waxau imaanayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay ciidamada booliska ay wadeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo kaasoo ay ka fulinayeen degmada jowhar bashiir cali daahir raadiyo kulmiye jowhar halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho iminkana akhbaraadka dibadda koox hubaysan ayaa weerar ku qaaday kolonyo uu la socday hogaamiyaha mucaaradka dalka venezuela juan kooxda weerarka soo qaaday ayaa la sheegay in ay miraayadaha ka burburiyeen qaar ka mida gawaaridii kolonyada ahaa iyadoo kooxda weerarka soo qaaday la tilmaamay inay siteen mootooyin afhayeenka hogaamiyaha mucaaradka ayaa warbaahinta u sheegay in 4 ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ay gawaaridaasi la socdeen isagoo intaasi raaciyey inaysan jirin cid uu khasaare ka soo gaaray hogaamiyaha mucaaradka dalka venezuela ayaa cadaadis xoogan kala kulmaya madaxweynaha dalkaasi nicolas maduro oo ay siyaasadda wakhtigan isku hayaan ugu dambayntiina dowladda Myanmar ayaa bilowday inay baaritaano ku samayso tacadiyadii lagula kacay muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya sanadkii 2017 kumanaan muslimiina ayaa waqtigaasi isaga barakacay dalka Myanmar iyagoo gaaray dalka ay diriska yihiin ee Bangladesh haweeneyda hogaamisa dalka Myanmar ayaa bishii hore maxkamadda cadaaladda adduunka ka hor sheegtay in la xisaabtanku uu yahay wax la aqbali karo balse waxay dafirtay in maamulkeedu uu wax gaboodfal kula kacay muslimiinta qaramada midoobay ayaa horey waxa ay Myanmar ka dhacayo ku tilmaantay inay yihiin isirsifayn ka dhana muslimiinta laga tirada badan yahay gudaanigeysel warkii doornimadan aad kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho intaa ayuu ku dhan yahay cidda warkayagu seega waxay dib kaga heli kartaa bogga internetka ee radio kulmiye.com ama baraha bulshada ee KNN